السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشة إذا قيمة قائلة ملك استاد نقدر سنسان يا نقدر داونسان رمضان مبارك بانو دلنا هاي رمضان تدنا إلهي عاف متقب هاي نجو جارسيو halkan waxaan doonaa bal haddii aynu maanta kaga hadalno colaadda Soomaalida ku dhex faaftay ee xaaladda lasxanood oo weli Soomaalidu aanay soo marin ilaa 1991kii dadka siyaasadda ka falanqooda siday sheegaanna waxay sheegayaan in dagaalka lasxanood uu yahay dagaal wajiyo badan yeeshay oo ay adag tahay in xilliyada dhow laga basoo kabtaba haddaba budagayaashii ama bilaabayaashii dagaalkan lasxanood oo ah siyaasiyiinta halkan idinka muuqda Soomaalida maxay ka doonayeen ma in Soomaalidu dhamaatay doonayeen ma kursi bay doonayeen yaa lasxanood gubay haddii aynu si kooban ugu soo dhawaano oo bal aynu eegno cidda dabkan shiday iyo bulujeedada ay ka leeyihiin sidaynu la wada socono raggani dhammaantood waa rag wada siyaasiyiin oo xilal madaxweyne dalka Soomaaliya ka soo qabtay qaar ra'iisul wasaarayaal ka soo qabtay iyo qaar xilal kale ka soo qabtay haddaba su'aasha mudan in laga jawaabaa waxay tahay kursiga ma dhiig baa lagu koraa oo uu qof kasta ugu badiyaa mise waa aragti u baahan tab iyo xeelad waxaynu ognahay siyaasiyiintani inay hal deegaan ka soo wada jeedaan madaxweyne farmaajona uu ugu horeeyo laakiin siyaasaddii 5 sanadood ee uu ku maamulayay magaalada Muqdisho iyo geyga Soomaalida qayb ka mid ah waxaad moodaa inuu ka qaaday uu madaxweyne farmaajo inuu dhiig faraha sii geliyo dhibaatada lasxanoodna dad fara badan waxay sheegayaan inuu isagu yahay commandosta iyo cid hogaaminaysaba marka la eego xogaha la hayo ee dhabta iyo siyaasadiisa door xulka u badan ee weli aanu soo shaqsaarin 1991kii markii lagu dhawaaqay jamhuuriyadda Somaliland inay dib ula soo noqoto dawladnimadeedii dhammaan deegaanada Somaliland beelaha deegaan way ka wada mid ahaayeen deegaan kastaana siyaasiyiin iyo madax dhaqameed buu u soo dirtay halkaana waxa lagu duugay saxeexa ah in dawladnimadii 60kii Soomaaliya ku dhex luntay ee loola cararay in dibbaha loogu taago oo Somaliland dhexdeeda laga yagleelo deegaan kastaana saxeexiisu lahaa waana saxeex caalami oo cidii saxeexday kama bixi karto waxay kaga bixi kartaa saxeex kale oo la isla ogol yahay Soomaaliya weli ma yaqbalin jiritaanka Somaliland iyaduna waxay sugaysaa inay saxeexdo inkastay 30 sano qaadatay Somaliland oo caalamku ku qasbay inay Soomaaliya la xaajooto haddaba colaadan aan wajiga lahayn ee imika bilaabantay xaaladda lasxanoodna laga dhigayo magaalo aan meel kale ka tirsanayn oo ku dhex taala dal aan la aqoonsanayn waxay sababtay dhiigga faraha badan leh ee imika yaala Soomaaliland waxay ku andacoonaysaa in al-shabaab ay soo weerartay nabadeedii iyo dimuqraadiyadeediina xilligan khalkhal lagu hayo dadka deegaanada qayb ka midina waxay ku andacoonayaan in tacaddi siyaasadeed iyo tacaddi dadba lagu hayo haddaba waa maxay colaadii dhici jirtay ee Soomaalida geeyigeeda ka dhici jirtay oo dhan colaadda lasxanood waxay kaga duwantay ee kaliya colaadda lasxanood waxay kaga duwan tahay dadkii nabadda loo daba fadhiisan jiray ee madax dhaqameedyada ahaa ayaa colaadda lasxanood xilligan ka taagan horseed ka ah oo xilligan iyagu qoriga sita hogaaminayana siyaasigii laga ilaalin jiray nabaddana xilligan wuxuu ku faraxsan yahay sida wax u dhacayaan laakiin su'aasha mudan in jawaab loo helaa waxay tahay dagaalka waa la yaqaanaa cidda bilowda laakiin qofna ma garanayo cidda soo gabagabayn karta ee dhammaystiri karta waana sababta loo yidhi dagaalka waa la bilaabi karaa laakiin lama dhamayn karo dad isku afa walaala ehela wiil abtigiya in colaad sida looga bilaabo iyadoo tahay 2023kii taasi waxay ka dhigantahay aqligii oo shaqayn waayay dababal daawada waxa ka qarsoon aan ku sheego ilana daawo dhammaan waxyaalaha lasxanood aanay ahayn suuragal inay ku dhamaato colaad iyadoo nabad la helo mooyaane iyo United Nations kuba wayna la kulmeen saa xukuumadda oo la kulmeen waxaan u sheegnay annagu in xuduudaha jira caalami ah cid keligeed xuduud bedeli karta unilaterally adduunka kama dhacdo dal yiraahdo ama tiraahdo annagu xuduudkayga waanu durkino halkaasaan gaarsiinay unilateralism baa la meel kama shaqeyso cid kaliya oo shaqeysay waxa weeye ruushkii Crimea qabsaday Puntland inaanay ruush ahayn baan filaya annaguna aanan Ukraine ahayn
marka taa waan u sheegnay waxa kale oo u sheegnay annagu wadaanu nahay Somaliland axzaabta iyo xukuumadda iyo shacab weynuhu wuxuu ku baaqay nabad arrintan intii lagu soo dhameeyay dhinaca kale laga hayaan ku nidhi nimanka u ergeynaysa inay leedihiin la hadla waa nimanka taagan dagaalku waa jihaad ee masaajidada ka hadlaya marka annagu saasaan u sheegnay waxaan u sheegnay inaan mowqifka xukuumadda aanu ku daba taaganahay iyo shacabigaba tukraqna waa dalkeenii xuduudku naga shisheeyaa waxa noo qoran oo naga go'an inaan xuduudka gaadhno laakiin waxaan doonaynaa sifo salmi ah oo degan oo walaaltinimo ah oo annaga dadkii deegaanka degana ilaahay ku abuuray iska laha dhulka annagoo wada soconayna xuduudka gaadhno iyagu si taamo ogola sidaasaan u sheegnay waxaan horta bal marka hore wax ka soo dhaadhicisaan war xoogna wax ku helimaysaan xuduud caalami ah oo labadiinuba dhaxasheen dee dhinac kaliya ma bedelo intuu habeen seexda ma odhanayo halkaasaan jeclaysan xuduudka gaarsiiyo